qiso waxaa jirta nin indhala ayaa masaajid fariistay oo tuugsanaya wuxuu ku qortay meesha boorbu wuxuu ku qortay indhaha la ahay waxbaan sadaqan rabaa nin kala imaaday boorkii buu tirtiray wuxuu ku bedelay boor kale ku bedelay markuu boorkii bedelay muxuu haye lacagtii waa u korortay dadkii dhan baa lacagta siiyay hadhowtii wuxuu yiri ninkan markuu imaaday aniga wax ma arkay nin kala imaaday aniga wax ma arkay ninkan markuu imaaday lacagtina waa ii korortay maxaa khaldan buu yiri muxuu bedelay boorkii wuu bedelay muxuu ku bedelay marka wuxuu ku yiri kii kala u sheegay wuxuu yiri boorkii wuu bedelay aniga waa indhala ahay muxuu haye sadaqa ay siiyay boorka marka hore wuxuu ka dhigay الدنيا ربيع لكنني لا أستطيع أن أرى جمالها الدنيا ودير أنا جانا ما أركي كرو قروح ذا معناه هو هذا السامين له هذا الكهراء أنا جا صدقيسته محوها عندها الله هيها هذا كان أيها كسامين بدن مرة كقاركود وحال ربا أنا بدشد وحيابها أديك سنة مركو قف قصة أرجع سامين تله لعقته مش كرده نيجي مركو مسكين كان لعقته أباطي مرة بدنا واحد جرته أو قفكة وكاغا باهنين العقل لكن وكاغا باهية إن عدكا وكالميسد إنه كالميسد محوها مركز تبا أدو أديك سو وحول وحيابها صدقة خير كاغا سو قليا ما يرى وحكا سو أديك سنكرتا عدكا أديك سنكرتا محوها العقتا أديك سنكرتا ما هنين كو كوبنتها وحيابها مركز حدان تغيير كيسي ودنا wuxuu ka sheekeynaya waxa jirta cawaamil waxyaabo ku saacideynaya isku bedeshid maxaa ku saacideynaya waxa ku saacideynaya qodobka koowaad waxa weeye ayna wasaltu الآن وأين أنا أريد أن أصل xageen gaaray xageena u socdaa inaan gaaro marka hore ina ogtahay hadaa tiraado waa isbedelayaa haye waa isbedelayaa xagee iska bedelayaa maxaa iga khaldan wixii ka khaldan waa ina marka hore ogtahay meesha joogtidna waa ina ogtahay meesha u socotidna waa ina ogtahay goolkaaga ugu dambeeya waa ina ogtahay waa inay wuduux aan leedahay meesha u socotid oo hiigsanaysid waa inaa ka warqabtaa waxyaabaha ku saaciideyn kare kamid tahay talabaad waxa waaye inaa isbedeshid si yar qaab yar mararka qaarkood waxa dhacda qofka markuu isbedelayo inuu wax weyn hamar ka bilaabo yaani hambi baa ku shidan wuxuu isleeyahay wax weyn ka bilaab qofkaas oo kale waxa way fududahay inuu hadana soo dhaco waxaan Soomaalida geedkii fudud lagu koro fudud baa lagu soo degtaa wax walba oo tartiib ku imaadana inta badan way dagaan marka inaad bedeshid si gaagaaban oo yaryar isku bedeshid macadalada saddexaad waxa waaye markasta oo xanuunkaaga uu bato ka xuntahay xaaladaada waxa ku u dhawaanaysa tagyiirkaaga inaad isbedeshid waxa ku cadaanaysa meesha u socotid laakiin maba dareensanid xaaladaada maba ka warqabtidba waxba kuma kordhayaan meeshaada joogaysa mar walba xanuunkaaga badan yahay waxa kale oo ku caawinayo inuu hadafkaaga ku cadiyo nihaa'iga meesha u socotid inaad sameysatid muxuu haye wax jadwal aad sameysatid qorshayaal steps ah midkaana sameynaya meeshaana ka dayacanahay meeshaan kama dayacni muxuu haye waxa soo dhan ina kala sarsaari kartid qof inuu isbedelo haduu rabo wuxuu khudwada koowaad waxa weeye inuu garto aniga ceebahayga waa intee marka fursadana asaga sameyn kara naqsiga meesha iga jira fursada xageen ka sameeyaa inuu qofka yaani inta badan dadku waxay dhahaan nasiib ma haysto oo wax noocaas oo kala laakiin nasiib uma baahna fursadaha inta badan waa la sameeyaa laakiin qofka haduu ku jiro muxuu haye riyo kaliya waligiis meel ma gaarayo waxyaabaha muxuu haye dhibaatada keena markastoo xaaladaada ka warqabtid xikmad ayaan ku soo koobaynaa markastoo xaaladaada ka warqabtid oo aan ka warqabtid xaaladaada iyo naftaada ka warqabtid ceebaha ay leedahay cudurrada ay leedahay ka warqabtid sida khaasatan cudurrada qarqarsoon cudurrada qalbiga ku dhaca sida muxuu haye isla weynanka qofka cijaab isgaliyo naftiisa kibirka cijaabka quruurka qofka muxuu haye oo dadka inay amaanaan u jecel yahay waxmana ma oga waa cudurrada nafta ku dhaco muxuu haye statuska kulligeed markastoo aad ku fakartid oo aad dhintid waxa ku kordhaysa ina isbedeshid cuduradaas waa wax fasaad waxa way qofka insaanka waxyaabaha fasahaadiye kamid yihiin qofka laba wax intuu sameeyo isku moodo dadka inuu ka fiican yahay inuu ka darajo sareeyo waxa way qofkaas oo kale waligiis horumar lama gaarayo isbedel lama gaarayo waa cudurada amraadul qalbi insha Allah mar gooniya ka hadli doona waxa kamid ah kibirka waxa kamid ah xiqdiga calool haynta xasadka kamid ah cujbiga kamid ah oo nafta qofka la yaabo oo meel fiican isla marayo marka calaaqaadkaaga waxa ugu sareyso
qofka oo qalbigiisa hagaajiyo iyo qofka calaaqaadkiisa hagaajiyo cibaadaadkiisa iyo qofka calaaqaadkiisa ceebta dadka ay ka baqaan inta badan waa ceebta qofka kaga dhacda jirka مثلا inuu qof mucaaq yahay oo gacmaha la ama lagu hala laakiin waxa ka sii dhib badan oo ka khatar badan ceebta muxuu ahaay qofka ku dhacda qalbigiisa ninba wuxuu yiri muxuu ahaay isbedelka risqiga wuxuu yiri wuxuu ku imaadaa shaqo kuwa kala ku qabsada waxay dhayeen risqiga shaqo kuma imaado hadii aad sida waxshiga u shaqeysid iyo hadii aad muxuu ahaay aad waliga shaqeysanin oo meel iska fadhido risqiga uu ku imaanaya marka waxa ku tashteen wuxuu sheeko dheer wuxuu masaajidka ayuu galay masjidka markuu galay wuxuu isku duduubay salli wuxuu yiri risqigii inuu imaada rabaa anoo shaqeysanin oo is dhaqaajinin marka habeenkii koowaad waxa imaaday nin taajir ah wuxuu keenay cunno tiro badan masaakiintii fuqarada la isugu yeeray way cuneen asaga halkaas oo kale u jiifaa ma imaanin habeenkii labaad wuxuu rabaa in asaga cunada loo geeyo habeenkii labaad saas oo kale ninkii taajirka cunadii buu keenay fuqaradii buu siiyay walaashii waa iska laabay asaga meeshuu gaajo ugu dhiman rabaa habeenkii saddexaad markii la marayo masaajidkii dhanba dad ma joogaan ninkii taajirka markuu cunada keenay dadkii fuqarada dhan way ka tageen marka wuxuu ku yiri dadkii fuqarada markii meesha ninkii masaajidka wuxuu ka ahaa wardiyaha wuxuu ku yiri aawo dadkii wuxuu yiri masaajidka lamaanta casuumad ka jirtay maana ku filanayaan in imaanaysid saadarteed marka qof jooga meesha male marka wuxuu yiri cunada intaan qasaaran leh waa qaadana masaajidkaas kala geenina ninkii ma habeenkii saddexaad u maraya oo meesha ku xirxiran yahay markaas uu markay maqleen waa u maadeen masninkan dhimar rabay u maadeen bariiskii cunadii bay u geeyeen cunadii markuu cunid ku bilaabay wuxuu dhahaa qultu lahum waa ku iri markaas maxaa ku dhahday dadku way yaabayeen waa ku iri markaas wuxuu yiri risqiga wuxuu u baahan yahay waxaan ku iri risqiga wuxuu u baahan yahay shaqo walow ixna dhahde macnaha wuxuu yiri yani inta yarta hadaan in ku soo jeediyeen waa igala tagi lahaydeen marka waxa waaye qofka insaanka mar walba wuxuu uga baahan yahay inuu isbedelo asaga shaqo uga baahan tahay inuu muxuu haaye adduunyo ahaan iyo aakhir ahaan isku hormariyo asaga shaqo uga baahan tahay asaga doonis uga baahan tahay ogama baahna muxuu haaye dadka asaga ku xeeran waalidkiisa kale muxuu haaye dadka qaraabadiisa kale saaxiibadiisa kale sheegista wuxuu sheegayaan waxba kama bedelayso qofkaas qofka waxa bedeli kara naftiisa ay ka soo go'do oo ka soo dhamaato asaga oo dareema inay cilad ku jirto dadka uu ka hooseeyo uu muxuu haaye oo qaata khaladaadkiisa